maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya waxay maanta meel fagaaraha toogasho cadaalada kula fulisay 4 dambiil oo ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab kuwaas oo ay maxkamaddu ku heshay dambi ciqaabtiisu gaarsiisan tahay dil toogasho goobta ay toogashadu ka dhacday barxadda dugsiga sare ee General Kahiye waxaa ku sugnaa mas'uuliyiinta hay'adaha ammaanka mas'uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo waliba shacab u soo daawasho tagay toogashadaasi cadaaladda ay dawladda Soomaaliya fagaaraha ka fulinayso dadka la toogtay ayaa waxay kala hayeen ismidaamiye fashilmo oo shabaab ka tirsan oo la yiraahdo Caawiye Axmed Jaamac 25 jir ah waxa uu Caawiye ahaa shakhsigii fuliyay qaraxii hoteelka Maka al-Mukarrama 9kii bishii 11 2013 qaraxaasi oo loo adeegsaday laptop ayaa Caawiye gudaha hoteelka waxa uu qaraxaasi kula beegsaday dad fara badan oo gudaha ku sugnaa waxaana qaraxaasi oo aan gudaha ka geysan wax khasaara uu sababay dadkii gudaha hoteelka ku jiray inay banaanka u kala yaacaan Caawiye iyo shabakadiisa oo qarax kale oo banaanka ugu diyaarsana waxay banaanka hore hoteelka ka fuliyeen qarax loo adeegsaday gaari kaas oo sababay dhimashada dad shacab ah ciidamo ka shaqeynaya ammaanka oo ku jiro sargaal la yiraahdo Ekis Gaashaanle marxuum Abuukar Cabdulla Aadan iyo waliba dad kale Caawiye ayaa qaraxaasi markii uu dhacay kadib ciidamada ammaanku waxay ka qabteen gudaha hoteelka waxaana baaris kadib uu qirtay inuu isagu ahaa shakhsigii soo maleegay qaraxii hoteelka Maka al-Mukarrama waa kan Caawiye oo ka hor intii aan cadaaladda lagu fulin waraysi uu siiyey SNTV iyo Radio Muqdisho ku sharaxaya doorkii uu ku lahaa qaraxaasi hoteelka Maka al-Mukarrama لا تنقلها لا تنقل عادها لا تنقل في المصنع أي توصل على المسلم ما تلقى ليش اسمه كبيرة يعني عاد مسك كبيرة لو بدنا نشاهد يا مركعوا كل مش صاروا كلها من الطبع ولا تعبان هاي لا طبع عليه مركع كالفوتيك محمد عاد كان والله صار هذا لا تنقل هذا مثل ما قال لا تنقل سامع بس أطلع وخلص المصنع لا تعرفه كلاش يستمر بيترك المطرقة أيوة كوها بيسيب مركا كلاش حق يستجيب مركا يستجيب سوى ساس أطلع يعني فرحان مركا حستمر يسمسها طعمه وكو خلق سنة جلاس يعني هو قاسنا لكن هذا المحضر نصر مركا نوصل على منه على هيلنا مسا مثلا أنا أول اللي بس تيجي والله إن أنا كنا على طريق لا تحسن أخاف يوم Caawiye waxa ugu dambeyntii la horgeeyay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida 7 bishii 7 ee sanadkan waxaana lagu fuliyay xukunka ay maxkamaddu ku riday oo ahaa dil toogasho maanta oo ay taariikhdu ahayd 24 bisha 7 sanada 2014 dambiilaha labaad ee ka tirsan Al-Shabaab ayaa gacan ku dhiigle Mustafa Maxamuud Shidane oo 22 jir ah Mustafa waxa isaga iyo Cabdinaasir Khaliif Maxamed oo maanta lala toogtay ay si wada jir u dileen Ekis Dable marxuum Cabdi Maxamed Xuseen oo ka tirsan ciidanka xoogga iyagoo ka qaatay qorigii uu hubaysnaa waxaana labadan dhagar qabe ay ka tirsan yihiin maleeshiyada kooxda Al-Shabaab waxaana maalmo kadib markii ay dileen marxuumka laga soo qabtay degmada Hodan ee gobolka Banaadir intii ay ku jireen gacanta hay'adaha ammaanka ayaa waraysiyo aan si kala gooni ula yeeshay waxay sharaxayaan sida askariga u adeegaya bulshada u dileen waa kan marka hore Mustafa oo sharaxaya sida uu askarigaasi u dileen isaga iyo saaxiibadiis amar ilaahay shalay subaxan xaafad ka soo wada baxnay anagoo iska socno magaalada iska soo qaraabtaynay aan meel waxaan uga dabanay yar askariga yarka askariga markaan ka dabanay marka yarka bawrka wadaya wuxuu niyo markaan macnaha qoriga ma qaadanay bacad oo bees ay waayahay markii la yiri wixii la soo deganay yar ila socday
ninkii wuxuu ku qabtay stoorad markaas wuxuu yidhi isku soo dheji qoriga iska dhig qoriga markii uu yidhi qorigii uu soo meersay qoriga markuu soo meersadana xabada u dhineen xabadii markii ninkii ku dhaawayna uu dhacay oo qorigii ka qaatay anna booshkii ka qaatay qorigii waa la qaaday eegtoogtaa ligey $7 ka doolar lahayn magaasha kulley ninkii darawalka baabuurka ka ahaaya qoriga ee waxa gaday aan lacag $100 aan ka qaban cabdinaasir khaliif maxamed oo isna gacan ku dhiiglihii la dilay mustaf askariga u adeegaya bulshada ayaa isna sharaxaya sida askariga u dileen meesha ka suurtagal ah anku baabuurka meel taagan aniga askariga meesha soo maray aqoon uma lahayn qoran uma noqon wuxuu yiri saqadkan kuma horeeyo ninkan qoriga wata qorigaas kaliya oo dhintay ninkaas qoriga ma kaalay haye marka imse qof baad haydaa maxaad wadateen huba muskilada lama makarafo inaan wiil kala ahayn wiil kala qorshaha galay anigana waa la soo adigana bisolada wadateen marka kee xabada ku bilaabay wiil kala la soo bilaabay magaciid meeqa xabo ku dhuftay wallahi inta tan qiyaaska labadan gacan ku dhiigle oo iyagoo ka tirsan amniyaadka al-shabaab dilay askari bulshada u adeegayay waxa iyaguna ay qayb ka hayeen maanta 4 dambiile lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska generaalka aye qofka afraad ee al-shabaab ka tirsan ee maanta la toogtay ayaa isna waxa uu ahaa nuur cabdulle cawaale oo ahaa hoobiyarida ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab nuur waxaa lagu soo qabtay qori hoobiya oo noociisu yahay 82 milimitir iyo 3 xabadood oo rasaastiisa qorigaasi oo ururka al-shabaab ay ku duqayn jireen xaafadaha magaalada muqdisho nuur oo lagu soo qabtay degmada Dayniile ayaa markii ay ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen kadib waxa uu sharaxayaa kamid ahaanshiisii kooxda al-shabaab iyo weliba sida uu qorigaasi xaafadaha muqdisho ugu duqayn jiray حاجة كل جرجة كل جرجة أوكي محاوقة بس اللي كل شيء كاس أنا قاعد أقول أوكي هو كمية جدا أوكي هو هذا مركز لكن وش وقتي عينك بوليس الصوماليين قال قال سنين يكون شقتين محافظة سنة يسوي بحر أربعة سنين يا ويسوي بحر أوكي رجع كلام كل اللي بيتيجي الشعب الصومالي اللي يقول لك هو كان أيقنا حاجة جوين قار هو بحسن اوكي ادري مقدش يا جماعه marka maxaa ku jeclaatay shacab Soomaali lagu dhibaateeyay inay xiiso ama urug shaarnimo marad waa wax isku qornaa waxaan dan way khaftay waa wax isku qornaa inta ku kala tifaaday ana shacab min wax isku qornaa hoobiyarida nuur cabdulle cawaale waxa ay maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ku riday xukun dil ah taariikhdu markay ahayd 25 bishii shanaad sanadii 2014 waxaana xukunkaasi maanta lagu fuliyay hoobiyaridahaasi iyadoo xukunkaana ay ku fuliyeen 4 dambiile al-shabaab ka tirsan ciidamada qalabka sida Soomaaliya oo safaf u soo galay si ay u gutaan waajibka qaran ee ka saaran inay fuliyaan amarka maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya Liibaan Cali Yarow ayaa kadib toogashadaasi cadaaladda waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka isagoo sharaxaya marxaladii kala duwan ay soo mareen lagar qabayaasha maanta fagaaraha lagu toogtay ismiidaamiye shabaab caawiye axmed jaamac 25 jir ah ina saynab jaamac ku dhashay degmada burco wuxuu qarax ka fuliyay hoteelka مكة المكرمة تاريخ مركز سوالكي بشيكو إتغناد 2013 قرحاس أو سببي دمشق دد فربادان أو كمت أها أكيس قاشان لي أبوكر عبدالله آذن مالنتي أي تاريخ أهيد تضبادي بشي تضباد 2014 وحي محكمة درجة كواد إذا ماذا قلب كسيدة أفريستي دعوة إقامتكي لو هيستي اسميدامية شباب عاوية أحمد جامع وحين كحكنتي دلتو غشاه ما أنت أو تاريخ تهي 24 بشي تضبات
2014 waxay ku fulisay xukunkii dilka ahaa taariikhdu markay ahayd 1 bishii 3 2014 gacan ku dhiiglayaasha kala ah gacan ku dhiigle shabaab Mustaf Maxamuud Shidane 22 jir ah ina Canab Faarax ku dhashay Guraceel degan Hodan 2 gacan ku dhiigle shabaab Cabdinaasir Khaliif Maxamed 21 jir ahaa ina Salaado Maxamed ku dhashay Guraceel degan Hodan kuwaasoo Cabdinaasir oo horay maxkamadda ciidamada qalabka sida ugu xukuntay inuu ka tirsan yahay ururka nabadiidka al-shabaab kadibna uu ku baxay cafis madaxweyne waxay si bareer ah oo ula kac ah oo qorshaysan u dileen marxuum Akis Dable Cabdi Maxamed Xuseen iyagoo ka qaatay qorigii uu ku hubaysnaa maalintii taariikhdu ahayd 8 bishii 6 2014 waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiiglayaasha waxayna ku xukuntay dil toogasho maalintii taariikhdu ahayd 15 bishii 6 2014 xukunkii maxkamadda ciidamada qalabka darajada koowaad waxay ka qaateen rafcaan maalintii taariikhdu ahayd 13 bishii 7 2014 maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar labaad waxay u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay 1 gacan ku dhiigle shabaab Mustaf Maxamed Shidane 2 gacan ku dhiigle shabaab Cabdinaasir Khaliif Maxamed waxayna ku xukuntay dil toogasho taariikhdu maanta oo taariikhdu ay tahay 24 bishii 7 2014 waxay ku fulisay dilkii oo hore loogu xukumay taariikhdu markay ahayd 24 bishii 5 2014 shabaab Nuur Cabdulle Cawaale 21 jir ah ina Xaawo Cali ku dhashay Galgaduud waxaa lagu soo qabtay qori hoobiye ah noociisu yahay 82 mm iyo 3 xabadood oo rasaasiista ah qorigaasoo ururka al-shabaab ku duqayn jireen magaalada Muqdisho maalintii taariikhdu ahayd 25 bishii 5 2014 waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay shabaab Nuur Cabdulle Cawaale waxayna ku xukuntay dil toogasho maalintii taariikhdu ahayd 3 bishii 6 2014 wuxuu ka qaatay xukunkii rafcaan maalintii taariikhdu ahayd 19 bishii 7 2014 maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar kale u fariisatay rafcaankii uu soo qaatay shabaab Nuur Cabdulle Cawaale waxayna ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad dil toogasho ayay mar labaad ku xukuntay maalintii taariikhdu ay 24 bishii 7 2000 maanta oo taariikhdu ay tahay 24 bishii 7 2014 waxay ku fulisay dilkii hore loogu xukumay wabillahi tawfiiq 40 dambiile ka tirsan al-shabaab ee maanta lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska General Kahiye ayaa ka dhigaya tirada maleeshiyaadka al-shabaab ka tirsan ee si cadaalada dhegta dhiiga loogu daray bishan barakaysan ee gudaheeda ilaa iyo 6 maleeshiyaada waxaana tallaabooyinkan toogashada ay imaanayaan tan iyo wixii ka dambeeyay markii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya loo magacaabay gaashaanle sare Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare Cabdiraxmaan Cumda iyadoona tallaabooyinkan lagu tooganaya dhagar qabayaasha al-shabaab ka tirsan ay noqdeen kuwa ay xanuunkooda dareemaan maleeshiyada kooxda al-shabaab taas oo ka qaylisiisay horjoogayaal ka tirsan kooxda al-shabaab عبد العزيز أفريكا SNTV مقدشو.